soo saarayaasha barnaamijka Soomaaliya maqal oo idin soo diyaariyay maanta barnaamij yar oo ku saabsan maalinta jacaylka adduunka waxaana barnaamijka igala qayb galayo dhalinyaro dhowr ah kaasoo aan ugu talagalay inaan fikirkooda la qaybsano waxay la fadhiyay mid ka mid ah dhalinyaradaasi adigu ku bilaab magacaaga iyo fikirka aad ka qabto maalinta jacaylka marka hore cali waa maasan tahay waan ku salaamayaa adiga iyo baahda TV-ga iftiimiye iyo maxala iyo cameramanka Mukhtaar magacayga waa Kaamil Kayse oo maxala ku nool magaalada Iskasuna waxaan maxala fikirka aan ka qabo maxala maalinta jacaylka waxa waay aniga maxala marka hore ma aaminsani waxa la maalinta jacaylka ilaa maxaa yeelay ma jirto maxala hal jacayl maxala hal maalin kuma koobno maalin walbo maxala jacayl oo maxala woo jira ilaa doo jacayl jiro mid kale maxaa lahaa hadii ay maxaa dadka dhahayaan oo kale maxaa lahaa maalin jacayl jirto ani waxaas dhahanay maxaa maalinta maxaa maxay keenaysaa maxaa jacayl ama dareen zaid ah ma ku beermay waa macquul in aad kale maanta waxa xusooya maalinta oo jacaylkeyga oo aad maxaa maalinta qoftan waa maalinta barte ama waxa maanta waxa maalinta aroose waa sanad guuradii maalin hebel soo marka macquul taas in aad laakiin maanta waa maalin jacayl oo dabaaldegaya taas aniga maxaa ani ma aaminsani runtii maalinta jacaylka kaliya miya waxaad aaminsaneen mise jacaylka sidiis ayaaba qawaaf ka qabtaa adigoo mar kale ku naqanayo marka hore aday qawaaf dhadarku qawaaf weeyaan mid kale maxaa aniga maxaa jacayl waa aaminsanahay ma dhahay maxaa jacayl ma jiro hadii aniga maxaa qofka bini'aadamka marka la diga maxaa jacayl maxaa hadii loo marka ugu horeyso ereyga ugu horeeyo maxaa sabirka ugu horeeyo maskaxdiisa uu ku subsamayo waxa waaye wuxuu dhahaa jacayl gabar iyo wiil is jeclaaday soo markaas maskaxdiisa waxa kaliya ku soo dhacaysa aniga maxaa waxa dhahaa maxaa jacayl maxaa lahaa jacayl oo maxaa oo labada qofood oo kaliya is jeclaado waa jacayl waalid u qabto waa jacayl dalkaaga jeceshahay waa jacayl saaxiibkaaga jeceshahay waa jacayl aad jeceshahay maxaa lahaa adiga maxaa wax barashada wax walba aad jeceshahay soo aniga ma dhahay maxaa waa jacayl maxaa oo waa labada qofood kaliya jeclaatay aniga waxaan jacayl u aaminsanahay laakiin su-aasha u dambeeya haddii aan kugu celiyo Kaamil jacaylka iyo lacagta keebaa habboon in la qaato inkastoo su-aashaasi oo in badan yacni dadku ay ka wada hadleen haddana adiga fikir ahaankaaga maxaad ka qabtaa maxayna tahay jacaylka ama lacagta keebaa habboon ayaad qaadan lahayd fikir ahaantaada su-aashan waa su-aal mar walbo aan soo noqoto aan dhammaanayn xitaa Facebook xataa way daba socotaa jidka xataa meel ka maraa lahay walaan run ahaantii haddii la maxaa jacayl iyo lacag keebaa aaminsantahay aniga waxaan aaminsanahay waxaa dhahanay maxaa aniga lacagaa dhihi lahaa كوس محل مركور جعل وجرا جعل وامسنته جعل مركور دتك بني ادم كويس قلدان هدي الله محل جعل يلعك جعل الان كوس محل جعل محل مقدر جعل سان وا قفك جعل كوغو رacdo سان وا مركور لعك تركود محل او اديس لعكتان دورت لعكت ما واي لعكت الى ما جعلات الى جعل وايد نفسكده ereyga jacaylkooda anagu iska naqsanaya marka hore anigana maxaa mar walbo maxaa for example Soomaalidu waxay raadaan maxaa laba qaaban misqaado صح واين هدي محل هدي سلو فيريو هدي محل قفك أو محل هذا جعل شاركو هدي for example أنا قبل تجعله وحا محل وحا وبهنا إن محل أيضا محل كفرحيو هدي أن كفرحنا يسوع مركا هدي أن جيف دقايو محل هدي وقتها يسوع مال هدينا أنا محل صاحبته مثلا لا هي بلايا تاسمع على سكن هنا لو دقة الله سو مركا هدي قفت أجعشة وأنا كفرح الساعة ومحل صاحب بدأ هدي كرمرة هدي يسوع مالنا حمك نقدر ماناي سو مركا أنا واحد لما مركا لا عكشة قيسو كبعد جعل راسو محلا مليه كرم محلا قفك محلا هدي أول عك هست قفت العك لك وجعلانية قفك الدرين ولا معقول إنه محلا واحد جعلاده هذا اللي محلا مركودم بيسو أنت سكسوك ولا هذا الكي واد ما سنتهاي فكر كوناسي قاب قدر وتمجران ما دام تفرصوا هالشيء tv.ftmi.com قف لا يهل قفت سلامي سو يعني ما ضدك كداونا ولا محلها أنا محلها هذا واحد قف محلها هبل أيام سلامة ما جرته دمان صاحب دمان سلامة أيه وحيد جاي سنايو كارهن هذيك جوري سنايو محلها علي أسلوب يا مختار محلها دمان وحي سلام كارهن وضور سلامة يا وما سنت عليه وما سنت هاي كاسنا وحا كامل كيس داود أو أن فكر كيس حلقة سكوارجنا سيدو كله برامج كا وحا نقل خيب خذنايو مريم معلنو أو كمد gabdhaha ku nool magaalada Iskasuna ee wadanka Sweden Marian maanta waa maalinta jacaylka adduunka ee loo astay adduunka ee 14ka Febraayo maxay tahay fikirka aad ka aaminsan tahay adiga ahaantaada assalaamu calaykum waa maasantahay cali marka hore magacayga waa Mariam Alnuur waxa ka aaminsanahay maalinta jacaylka adduunka inay tahay maalin farxad ah ee jirto maalin kasta jacayl wuu jiraa laakiin maanta camal oo 14 February tahay inay tahay maalin qaas ah oo jacaylka u gooni ah oo farxadeedana wadato ma jiraan maadaama aad ka dhawaajisay inay tahay maalin ka sameeyso mise aad la qaybsatay asxaabtaada mise tahay inay tahay maanta maalin jacayl ah
way jirtaa waxyaabo badan oo aan sameynay anigii asxaabteedo kaleeto jaceylka kaliya madoo kaleeto waalidiinteena hadda maanta oo kaleeto waa maanta oo 14 February waalidiinteena asxaabteena hadda waa kan asxaabta dhammaan isla joognaa sida idaacadda u joogno u farxeen inay tahay maalin gooni ah. haddii aan su-aal labaad ku raaciyo oo su-aasha ugu dambeysa ah jaceylka iyo lacagta keebaad habboon in la qaato adiga fikirkaad ka qabta adigoo soo koobaya labo qodob aad u waaweyn haddii la dhaho ishaqbo ani fikir ahaanteyda waxay tahay jaceylku dhammaanaysaa marka qofka isbaratiin wejiga jaceyl isku baratiin oo kale lacag qof wiil gaari wato kale hadda barto wuxuu yahay oo kasii su'aalo noloshiisa wax badan ma ka ogaan karo sida qofka aad jecel oo kale su'aal ma weydiin karo marka ani waxa qaadan lahaa inkastoo iidan lacagta laga maarmin laakiin haddii oo maxaa lahaa qofka isjeceshiin oo isku kalsoon tihiin wax kasta horta calafka ka weyn وين اسكي ما نسال عقد وحكست الى محدها جعلك ما wax qof iska keeni karo waa raxmad ilaahay qofku labada qof soo dhaxdhigaan hadoo ilaahay nasiiyo jacayl lacagna iska iimaanaya misanani waan kaaga mahad celinayaa fikirkaaga wanaagsan iyo sida quruxda badan aad ugu dhiibatay Maryan Macalin Nuur maadaama aad maanta fursad ay ku siisay TV-ga Iftiimiye ma jiraan dad laba iyo hal aad salaamaysameysay waxaad ka oran lahayd horta marka hore way jirtaa waxa salaamay horta Soomaalida meel walba ay joogan inta dhageysanaysa inta maxaan lahaa itaqaano inta maxaan lahaa aqoonimo waxaan ku salaamay salaad ugu sharafta badan adduunka salaamu calaykum qaasada waxa si salaamay asxaabteeda oo ila degan magaalada Iskalastuuna iyo inta aan jecelahay waad maasan tahay taasina waxay Maryan Macalin Nuur oo idana fikirkeeda nala qaybsanaysa maanta sidoo kale waxaana la jooga maanta mid ka mid ah dhalinyarada ku nool magaaladani Iskalastuuna ee wadanka Sweden adigoo marka hore ku bilaabaya magacaaga iyo fikirka aad ka qabto maanta ay ku beegan tahay maalinta jaceylka adduunka ee loo asteeyay 14 Febraayo maxay tahay fikirka aad ka qabto marka horeyso Cali Usluub waa maasan tahay marka labaad waxaan mahad celinayaa kaamirista Mukhtaar iyo fikirka aniga ka qabo maalinta jaceylka rumaantii fikirkaygu waan taageersanahay maalinta jaceylka waan ku faraxsanahay waana maalin qaale rumaantii jaceylkuna adduunka ku dhisan mar walbana jaceylku oo jira ku fikir badan qof walba fikir oo wataa aniga fikirkii aan jaceylka qabo wuxuu yahay jaceylkuna aad aan u aaminsanahay rumaantii jaceylna hadda waa ku jira waana soo jilay marka waan jiri doonaa intaas aan ugu baxay waa maanta يعني بحن مدام جعلك تدواجس inuu yahay shayga kaliya jiro ee qaali ah hadii jacayl iyo lacag keebad qaadan labadooda waxay adigu fikirkaaga soo koobay wad ma santahay Cali Usluub rumaantii jacaylka iyo lacagta intaba waxaan qaadan lahay labadooda waxaan door sababtan jacayl ku doortana wuxuu yahay anigu jacayl aan ku dhashtay rumaantii dad qof walba fikir oo qaba jacaylka oo ka qaba iyo lacagta intaba qof jacayl buu leeyahay qof lacag buu leeyahay laakiin fikirkaygu iyo midka aan aaminsanahay wuxuu yahay jacaylka taasaan ku doortay jacaylku aniga ku dhisan aniga ku dhashtay aniga wax ku dhalay waana jacaylna waa sameeyay weligeena lacag waxna ma ku raadin wad ma santahay kaasina wuxuu ahaa Maxamed Cumar oo ka dhiibanaya fikirkiisa Maxamed maadaama maanta fursad u heshay TV-ga Iftiimiye maxaad ka oran lahayd tala iyo tusaale intaba yaadna ka salaamneed yani maadaama fursadan qaaliga ay ku siisay maanta barnaamijka waad maasantahay Cali Usluub rumaantii idaacadda waan u mahad celin lahay waxaan kaloo jeclaan lahay xitaa idaacadda barnaamijyadeeda inay sii zaaidiso xitaa rumaantood wadaag inay sameyso kale rumaantii fikir aniga waan idaacadda fikir waan ku darsan lahay waxyaabo badan maantana barnaamijka rumaantii soo bandhigtay oo maalinta jaceylka maanta dadka macnaha sida u aragtaa rumaantii aadaan idaacadda ugu mahad celinayaa waxaan rajeynayaa idaacadda inay noqoto idaacadda ugu jirto Sweden oo dhan fikirkaygu kale aan idaacadda ku darsanay waxay tahay barnaamij doodeed macnaha lagu daro barnaamijyada idaacadda lagu soo kordhiyo fadlan xoo ahaa rumaantii fikirkaaga ka dhiibo kale sida u aragtaa wadankaaga inaad ku noqoto ma jeceshahay kale waxyaabahaas oo kale dood wadaag inaan sameeyo adiga iyo kaamirista iyo mas'uulka Mukhtaar iyo adigaba wariyaha Cali qasatan intaasaan idinku darsanaya waa maasantii waad maasantahay maxamud fikirka wanaagsan ee aad
nagu soo kordhisay waan rajaynaynaa inaan wax ka bedeli doono barnaamijka waana kaaga mahad celinaya waqtigaaga muhiimkaad na siisay sidoo kale maanta barnaamijka waxaa igala qayb qaadanayo saaxiibkee maxamed cabdiraxmaan xasan oo loo yaqaano geesay kusoo dhawo marka hore barnaamijka geesay oo ku dhowda cali maxay tahay fikirka aad ka aaminsan tahay maalintan ay ku beegan maalinta jacaylka adduunka ee loo asteeyay 14 Febraayo haddii aan fikradeeda ka dhiibto maanta horta aniga waxay la mid tahay maalin caadiya oo wax isbishal oo gaaray aniga uma fadhiso maalinta 14 bisha Febraayo oo ay ku beegan tahay maalinta talaada oo maanta ah marka aniga waxaa dhilaa waa maalin igu caadiyo maalmaha kale aan wax igala duwaneen maadaama aad dhahdo maalin oo caadi ay tahay maadaama ay tahay waxa la xusayna maalin jacaylka sidii isku tihiin jacaylka ma aaminsantahay adiga wallaahi jacaylka aniga waa aaminsanahay laakiin qaabka waa aaminsanahay xitaa qofka ka helitaanka laakiin jacaylka runtaa inuu jiraan muu malinay geesay haddii jacayl iyo lacag keeba habo inaad adiga macnaha la qaato mise aad qaadan lahayd adiga horta aniga waxaa qaadan lahaa jacayl because wax cad iyo wax madow waa kala muuqdaan labadooda isku mid maahan sidaa daraadeed waxaan qaadan lahaa jacaylka sababtoo haddii wax kastana sabab leeyin loo qaadanaya because jacayl la-aantiis adduunyada ma dhismeen qof ma dhasheen micnaha adiga dadna iskuma tageen oo isjecel wada fadhiista jacaylka micnaha haddii sidoo kale u kala gudbiysan sida saaxiibtinimada sida asxaabta oo kale sida adiga oo haddaan ka hadlo saaxiibtinimo la isku jeclaan karaa iyo waxaa jiro xiriir jecel oo mid dheer iyo mid gaabane mid ka dheer micnaha waa midka oo familia weligood dhammaanin sida soomaalida tirana farkaa xumata filqfila kaaga maarto because jacaylkaas taas isku xirayo micnaha laakiin hadda dhab ahaan jacaylka kale qofka wuu dhammaadaa asxaabtinimo way dhammaataa kaasna wuu bilowda wuu dhammaataa saniga waad mahadsan tahay fikirka wanaagsan aad ka dhiibatay maadaama maanta fursadda ku siisay tv-ga iftiimiya tv barnaamijkan aan ugu talagalnay inaan ugu faa'iideyno dhalinyarada ku nool qurbaha ha ahaadaan kuwa ku soo hayaamay ama ha ahaadaan kuwa ku dhashay 2 iyo 1 ayaad ka salaami lahayd maxaa fikirka kusoo korinayd barnaamijka waxaa ka salaami lahaa asxaabteeda dhammaan ku wada nool magaalada Skellestone wadanka Sweden gaar ahaan magaalada Skellestone iyo asxaabteeda oo kaliyihiin adigoo daadiyaha barnaamijka ah iyo oo Cali Asluub iyo cameramanka oo maanta inoo hayo xagga kamerada Mukhtaar Halyeyga dhammaan waa salaamaya waxaan barnaamijkana waxaan rajeynayaa inuu kusoo gobgobsi tayale kaasina waxaa mid ka mid ah soo saarayaasha barnaamijka Soomaaliya maqal Maxamed Cabdiraxmaan Xasan oo loo yaqaan Geese waxaa maanta barnaamijka la qayb qaadanayo mid ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Skellestone qoraaweyn ee la wada yaqaano Zakariya Cabdi Dirshe Zaki barnaamij ku soo dhawow adigoona ii sheeg soo koobayo fikirkaaga aad ka aaminsan tahay maalinta jacaylka adduunka ee loo asteeyay adduun weynaha 14 Febraayo Valentine Day maxaad ka aaminsan tahay maalintaas bismillaahir rahmaanir rahiim oo ku salaamay cali dhamaan oo mahad celinaya TV-ga iftiimiye runtii waa run TV aan la soconno oo qaybta aan raadiyaha sidoo kale Soomaaliya maqal aad u interest u leh runtii aadan uga faraxsana maanta kulankan ama jaaniskan aan kaga faa'iideysano runtii iyadoo maanta lagu jiro maanta ay tahay maalinta 14 February dunida qaar oo macnaha dunida macnaha looga dabaaldegayo laakiin anaga waxaan taa ka aaminsanahay ra'yiga maalinta jacaylka ma jirto maalin runtii anaga ahaan anahay jacayl waan aaminsanahay Soomaali hadaan nahay ama diinteena dhaqankeena laakiin maalin u gooni runtii ma nihin anaga dadku dabaaldegaya xaqiiqiyan oo macnaha quseeya jacayl laakiin waan aaminsanahay wuxuu yahay special qof walba aaminsan runtii waxa ila gudboon ra'yiga ahaan halka dunida uga dabaaldegayaan runtii maanta la dhaho maanta waa maalintii jacaylka runtii uma dabaaldegaysa miya runtii jacayl qofkii haaya runtii dabaaldeg maba macnaha uma furnaba inuu dabaaldego wuxuu qofku dabaaldegi karaa qofka jacayl macnaha ku leh ama shuqulkiisa ku jira ama data markaas aan haaya waa markii uu qofku rabo helo ama uu ku guuleysto ayuu dabaaldeg u jiraa laakiin 14 February runtii ma dhihi karo maalintaas u goonida macnaha anaga maba qabnaba laakiin jacayl sidiisa waan aaminsanahay Zaki haddii aan ku raaciyo su'aasha u dambeyso iyadoo waqtiga aadka noogu yaryahay jacayl iyo lacag keeba haboon in la qaato mise aad qaadan lahayd adiga fikir ahaantaada adigoona fikirkaaga soo koobaya cali waxaan aniga fikirkayga jacayl runtii qaadashaba haddii timaado saan ognahay labadooda haddii lagu barbar dhigo ama aniga fikir ahaanteyda
waxaan qaadan lahay jacayl waayo jacayl lama helo sideedaba waaba caadiyan qofku micnaha dhabku jecel ama jacayl sidiisaba runtii qiimo weyn buu leeyahay balse saasay tahay lacag adiga oo leh lacag biniinaar haddaad tahay maanta lagama yaabo karoomaad inaad diiddo way biniinaar tahay way karoomaad kama tegi kartid lacag qof diidaysa ma laha balse laba dara mid dooro jacayl ama runtii lacag haddii la dhaho waxaan qaadan lahay jacayl waayo jacayl nolosheeda dhan baa ku tiirsan anigaa ku dhashay runtii anigaana u baahan ma aha mid asi ii baahan yahay zagi waad ku mahadsan tahay fikirka wanaagsan ee aad ka dhiibatay su-aashaasi sidoo kale maanta waa maalin fursad qaaliya runtii oo ay tv-ga uu fursad ku siiyey iftiimiye maxaad yacni fikir hal iyo laba ka oran lahayd yaadna ka salaam lahayd barnaamijka maanta dhammaan waan salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan runtii khaasatan dadweynaha degan magaalada iskalistuun aan ku noolnahay oo runtii aad iyo aad ula socda tv-gan kuna xiran raadiyihiisa soomaaliya maqal iyo tv-ga iftiimiye runtii meel walbay joogaan intii taqaan asxaabteyda dhammaan waxaan leeyahay aniga oo maanta jaaniskan ka faa'iideysanaya kulankan cawada tv-ga kulanka ula yeeshay marka waxaan leeyahay meel walbay joogaan waxaan ku salaamaya salaanta assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waad mahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa zagi cabdidiirshe oo ah qoraa yar waadna ku mahadsan tahay sida sharafta aad ugu qayb qaadata barnaamijka waana kaaga mahad celinaya waqtigaad hortay sidoo kale waxaa maanta ii sheegay barnaamijka la qayb qaadanayo waa mid ka mid ah dhalinyarada ku nool iskalistuuna waa gudoomiyaha dhalinyarada isku xirka maxamed qadar oo sidoo kale barnaamijka la qayb qaadanayo maxamed qadar marka hore kusoo dhawo barnaamijka waa mahadsan tahay weriye cali adiga iyo kaamirista bayaan mukhtaar iyo idaacadda soomaaliya maqal iyo tv-geedaba aad ba mahadsantiin waad mahadsan tahay sidaan wada ogsoonahay maanta waa maalinta jaceylka ee 14 febraayo ee adduunweynaha inta badan loogu dabaldegayo maxay tahay fikirka aad ka qabto adiga ahaan aad ka aaminsan tahay maalintani horta haddii aan fikirkayga soo koobo maanta waa 14 february 2012 sanadka waxaa muddooyinkan inta badan maalmahan gaar ahaan dhalinyarada aad macnaha u hadalhayeen arrinta ku saabsan maalinta jacaylka aniga waa fahmi weysanaa runtii waxaas lahaaba ma maalin jacayl rasmi ah gooni ayaa jirto dadka macnaha jacayl gooni ah u dareema marka ilaa xal ilaa maanta maxaas fiirinaya bal xogaa inuu dareenkii wax iska bedelo marka waxba igama duwana wixii hore marka aniga fikir ahaan waxaa aaminsanahay inuusan jirin maalin gooni ah oo uu jacayl leeyahay iyadoo sabab aan ugu dhigayo kow mideena diinteena muslimka ah meel asal ama raad ay ku leedahay arrintaa in macnaha gooni jacayl loo xusamo kuma jirto tan labaadna muxuu ahaaye maalin kasta iyo sanad kasta iyo saacad kasta iyo bil kasta iyo daqiiqad kasta iyo second kasta ayuu jacaylka dhacaa marka maalin gooni ah jacaylka xoog badan yahay oo aslee maanta maalin qof walba jacaylkiisa xoog ma jiro marka anu waxaa aaminsanaya wax jira maaha arrintaas kaliya waxaad aaminsaneen inay tahay maanta maalin loo asteeyo jacaylka in loo dabaaldego laakiin jacaylka waad aaminsan tahay waa su'aal adagtan dabcan maalin jacayl ma jiro waa saa sheegtay laakiin xogaa inuu jira umalasa baalkan waa dhib badan yahay aad iyo aad midda kale haddaan usoo noqdo jacaylka iyo lacag keebahaba in la qaato adiga fikir ahaantaada jacaylka lacagta aniga dee lacagtaan qaadan lahaa sabab haddaan lacag haysto waxaan doonaan sameynaya nin masaar haystaa layidhi geedku doonuu jiraa soo maha marka haddaan lacag haystaba qof kasta saa i jeclaanaya jacayl ma soo iibsan kartaa yani haa orod ma u malaynaya waad aaminsantaa fikirkayga dad badan waa diidan yahay arrintaas qofka daawanaya ka mid yahay laakiin aniga ahaan waxaan aaminsanahay muxuu ahaaye jacaylka haddaan lacag haysto inaan jacayl u baahnaynba kolley taasi waa fikirkaaga kaasina wuxuu maxamed qadar uu fikirkiisa ka dhiibanayay arrintani aan wadiye sidoo kale maanta barnaamijka maadaama uu jaanis ku siiyey tv-ga iftiimiye waa barnaamijka soo saarayaasha barnaamijka soomaaliya maqal ee ka baxo radio iskalistuuna buntisiya maxaa tale iyo tusaale aad usoo jeedileed iyo aadna ka salaamneed barnaamijka maanta waxaan salaamayaa guud ahaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan dadka sida qaaska u daawanaya barnaamijkan caawa asaga halkan live ka ah muxuu ahaaye waxaan kula talinayaa muxuu ahaa in dhallinyaradeena aysan raacin barnaamijkan la leeyahay maalinta jacaylka weeyaan maanta laga yaabo in macnaha qofka uusan qofkii dareenhayo mar saacad kasta waqti kasta ayuu qofku jecel yahay u sheegan karaa hadday gabar ahaan lahaa haduu wiil ahaan lahaa marka in macnaha saacad inaan la siinin maalinka asaga ah oo qofka uusan dareen gooni ah uusan muujinin marka muxuu ahaaye dardaaran gooni ah weeyaan diinta macnaha yaa laga tegina maan dhihi lahaa laba iyo hal yaa salaami leed yani
cid kastoo i daawanaysa ayaan salaamayaa gaar ahaan dhalinyarada qaaliga ah ee degan magaalada Eskilstuna waddanka Sweden. waa mahadsan tahay kaasina waxaa gudoomiyaha dhalinyarada isku xirka maxamed qadar oo maanta barnaamijka igala qayb galaya sidoo kale maanta barnaamijka waxaan fursad u leh inuu igala qayb qaato saaxiibkayga gaarka ah ama ah midka soo saaro haddii jeer barnaamijka Soomaaliya maqal ee ka baxo Radio Eskilstuna qaybteedii dhacdooyinka waa Mukhtaar Yuusuf halyeega brother maanta sidaan wada ogsoonnahay waa maalinta 14 Febraayo ee loogu dabaaldego adduunweynaha intooda badan maxay tahay fikirka aad ka qabta adiga ahaan aad ka aaminsantahay maalintan aad iyo aad baan mahadsan tahay cali asluub adiga iyo dadka barnaamijka Soomaaliya maqal dhageysanaya ee Radio Eskilstuna kala socda iyo waliba kuwa daawanaya maanta si gaar ah waqti u gelin oo ku mahadcelinaya runtii maalinta 14 Febraayo ee adduunka dadka ku nool ay u aqoonsanayaan maalin astaan u ah jacaylkana aniga waxaan aaminsanahay inay tahay mid runtii mudnaanteeda leh oo in la xuso mudan waana taageersanahay waxaan ka mid ahay dadka aaminsan in la xasuusto maalin u gooniya jacaylka in la xasuusto ayaan aniga aaminsanahay runtii waxaan saas u leeyahay waan ogahay oo si marka loo eego dhaqankeena ma aha halka ay ka timidna waxaa u malaysaa inay raad ku leedahay diinteena diin aan ahayn laakiin inagoona aaminsaneen diinta ay maaragtay dadku raadka ay u gelinayaan haddana waxa jiritaankooda iyagu ay u dabaaldegayaan ay muujinayaan oo ah jacayl ayaa inaguna dareen ahaan aaminsannaho naqaanaa oo nagu jiro oon ku beerannahay oo mar walba ixtiraamnaa oo aan xusna saa daraadeed marka dadka lamaanayaasha ah kuwa isqabay ee isguursaday ee ilaahay calaf isugu diray kuwa aan weli isguursan ee afi hore isu noqon iyo kuwa waliba hadda macnaha soo bandhigaya oo jacayl raba inay wadaagaan waxay jaanis u tahay maanta oo kale inay isugu hambalyeeyaan inay maaragtay isu sheegtaan inay isu guddoonsiyaan hadiyad in macnaha maanta oo kale ay tahay maalintii qof walba dhalashadiisa oo kale maalintii jacaylka dhalashadiisa jacaylka ay abuureen oo kale inay maanta oo kale u arkaan runtii waa farxad weyn marka saa daraadeed marka waxaa ka mid ah dadka taageersan maalintan in loo dabaaldego maalinta jacaylka adduunka inkastoo waqtigan aad uu noogu yaryahay maxay tahay farqiga u dhaxeeya mise aad maxaad ka aaminsan tahay inaad qaadan lahayd jacaylka iyo lacag keebaa hadboon in la qaato adigu fikirkaagana soo koobaya runtii waa lagu kala ra'yi duwan yahay dad badan ayaa aaminsan in qofka jacaylka marka uu u baahan yahay ay tahay marka uusan lacag haysan dadna waxay aaminsan yihiin qofka markuu lacag haystaba inay tahay markuu jacaylku u baahan yahay runtii oo adag tahay inuu jacaylka lacag ku iibsado laakiin aniga dad badan oo aniga isku ra'yi aan nahayba waxaan aaminsannahay in markasta qiimo ka badan oo jacayl inuusan jirinba waayo waxa la iibsan karo waa shay oo qurux badan qof qurux badan qoftii shay qurux badan lagu qanciyo laakiin waxa marnaba la soo iibsan karin qofka qalbigiisa waxa u baahan tahay qalbiga qofka in la iibsado dareen gooni ah kalsooni in la kasbado iyo qofka in macnaha iyadu laga hadday nin tahayna laga abuurto hadday naag tahayna laga abuurto qalbigiisa wax qof qalbigiisa kugu soo jiidi kara adiga saa daraadeed marka lacagna lama soo siisan karo mana la soo iibsan karo marka mar walba si kastoo lacag u haysato aad tahay qofka qalbigiisa in aad isku beerto marka saa daraadeed waxaa aaminsanahay marka jacaylka inuu mar walba ka qiimo badan yahay shay kasto ha noqoto lacag iyo wax kastoo dunida yaalaba inuu ka qiimo badan yahay jacaylka aaminsanahay waa marka laga hadlayo jacaylka lamaanaha iyo jacaylka dadka is jecel sidoo kale jacaylka waalidka iyo galgacaylkana mar walba waa ka qiimo badan yahay waalidka iyo midka loo qabo dadka caadigaaba waa masan taali kaasina waxaa Mukhtaar oo fikirkiisa intaas ku soo koobay Mukhtaar maadaama maanta jaanis u heshay inaad barnaamijkan ka qayb qaadato hal iyo labo yaad ka salaami lahayd barnaamijka ugu horreyn salaanta waxaan ku bilaabayaa adiga iyo ah barnaamijkan maanta noo soo diyaariyay iyo cameramanka Kamil iyo sidoo kale asxaabta dhalinyarada maanta barnaamijka ka qayb gashay iyo inta daawanaysa TV iftiimiye inta dhageysanaysa barnaamijka Soomaaliya maqal toddobaadlaha ah oo ka baxa Radio Eskilstuna mawjada FM 92.7 dadka degan Eskilstuna Sweden iyo waliba guud ahaan dadka Soomaaliyeed meel walba ay dunida joogaan oo markaa nasiib u yeeshay barnaamijka daawadaan si gaar ah maanta anigu ka faa'iideysanaya fursadan qaaliga ah waliba maalintan farxadeed oo maalinta jacaylka adduunka waxaan si gaar u salaamayaa qofta adduunka ugu jeclahay gacalisadeeda qaaliga ah caruurteeda hooyadood Yasmiin Umar Nuurani oo ah lamaanahayga oo aan maanta anigu u fadhiisanay maalinta jacaylka adduunka aan leeyahay hambalyo waxaan dareemayaa inaad si wanaagsan ku soo gabagabaysay kaasina wuxuu mid ka mid ah soo saarayaasha barnaamijka Soomaaliya maqal ay ka baxo maalin walba waxaa Radio Eskilstuna Bunsiya waa Mukhtaar Maxamed Yuusuf Halyeega oo intaasi inooga barnaamijka waxaan ku soo gabagabeynaa intaas intaan dib u kulmi doono waxaa idinka tagay sida iyo nabadgelyo waxaadna naga daawan kartaan TV iftiimiye wixii tusaale iyo talan waxaad nagu soo hagaajin doontaan Soomaaliya maqal @hotmail.com